munaasabadani oo lagu daahfuraya xafiis cusub oo ay ku yeelanayso wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Khaatuma magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta ka dhacday gudaha xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatuma ee magaalada Buuhoodle waxaana furitaanka xafiiskani cusub ka soo qayb galay madax ka tirsan maamul goboleedka Khaatuma oo waxgarad siyaasiyiin culimaawidiin haween odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatuma Axmed Maxamuud Doolaal oo ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ujeedada ka dambeysay hirgelinta xafiiskani cusub ee wasaaraddiisu ay ku yeelanayso magaalada Buuhoodle. xafiiskii kaliya ee laga furo gobolka ee uu noqon doono xafiiskii ugu horeeyay wasaaradda ugu horeysay furata xafiiskan wasaaradaha kalena sidaan jecelahay baan ku tala jirro way furan doonaan xafiisyadoodii waxaan kaloo furi doonaa insha Allah hooyigii madaxtooyada ee gobolkan laga furi lahaa gobolka Cayn insha Allah magaalada madaxda Khaatuma State waa magaalada Laascaanood waxaan kaloo ugu bishaareynaa reer Laascaanood inay noo kiraysan yihiin guriyihii aan ka furi lahayn wasaaradahan oo kale sidoo ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay ka dhigo sidaan ku tala jirno haddii ilaahay uu nala garab qabtana Laascaanood ay gacanteeda ku soo noqon doonto muddo aad u gaaban waxaan kaloo halkan idin rabaa inaan ka taageero markaan intaa ka gudbo inaan ka taageero midaynta labada maamul ee Maakhir State iyo Khaatuma State labada maamul waxaa ku midoobaya dad walaala oo deris ah oo islaama oo isu baahan maanta walaalaha iyaga reer Maakhir waxaan u sheegaynaa walaal maanta inaanu idin baahannahay sida aad noogu baahantiin inaanu idinku baahannahay aynu guri kala dhisi kareynay aynu dad kala caawin kareynay waynu caawinay maanta waxaa taagan maalintii aynu dhulkeena iyo dadkeena wax u qaban lahayn walaalayaal waxaa la yidhi caruur iyo reer guura raac waa loo kala warramaa yaanay arrinteenu noqonin in marba war laynoo kala qaado innaga Soomaali baynu labadeena qolobo ku wada hadalnaa waynu wada hadlaynaa dad helayno nahay waa isu tanaasuleynaa waynu isu samraynaa maamulkeenu insha Allah wuu dhismayaa maantana meel fiican buu marayaa waxaad ku niyad wanaagsanaataan dad ehela oo islaam ah oo walaalaha baynu nahay meesha aynu wax isla dhignay aynu isla afgarano inaynu maamulka ku sabaysan doono haddii ilaahay ka dhigo dhinaca kale waxayna sidoo kale halkaasi ka hadlay waxgarad siyaasiyiin culimaawidiin haween odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhankooda soo dhaweey hirgelinta xafiiskani cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Khaatuma ay ka hirgelisay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn isagoo aan wasaaradaha ka mid ahayn oo shaqsi reer Khaatuma yaanu haynaa backgroundkiisa waa soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa waana garab taaganaa taanta sanka gudbay in aan doonayaan ka shirkii muddada ka soconayay Nairobi inuu gaaray guulo midho dhala imikana hawlihiisii kale la gudageli doono dadka reer Maakhir iyo reer Khaatumana waxaan leeyahay maanta berigii hore geljiru wuu la dami jiray waxaa la odhan jiray afarta geer ayay wasta afartii geer ahayd waa soo dhamaatay ayay wasti baan joognaa walaa ayay wasta saafkeed maanta waa soo dhaweynaynaa baan nahay gabdhaha gobolka Cayn waxaan leeyahay soo dhaweysir oo ku garab taaganahay waana kula shaqeynaynaa weligeena waanu shaqeyn jirnay annagu dadka maanta ku hadaaqaya ama ku hadlaya ama imaanaya manihin haddaan nahay gabdhaha ilaa iyo maalintii SSC la askumay annagu waa taaganahay marka hore waxaan halkan bogaadin iyo hambalyo uga dirayaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Maxamuud Doolaal oo furay xafiiskan oo ah wasiirka koowaad ee si official ah uga fura xafiis ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose
waxaan leeyahay wasiir welcome soo dhawow oo soo dhaweynaa oo kula shaqeynaa sidoo kale waxaan halkan taageero uga gudbinayaa maamulada khaatumo iyo maakhir iska taageeri mayno qabyaalad ku taageeri mayno waxaan ku taageeraynaa laba qodob marka hore dantayda ku jirta marka labaadna waxaan ku taageerayaa inay dadkaasi bartaan maamulka iyo maareynta oo ay la sinmaan maamulada kale iyo Soomaalida kale marka hadda waan garab taaganahay dawladda Khaatumo State Soomaaliya waa dawladeennii awal waan shaqaynaynay oo anna shacabkeedii baan nahay ururadeedii iyana waa dawladeedii oo wasiirkeedii awal waan garab taagnaynay markaan sidii uma garab taagnaynay fiiska cusub ee la furay ee uu yeelanayo golaha wasiirka arrimaha gudaha intaa haddaan ka gudbo waxaan rabaa munaasabadan qaaliga ah oo ka faa'iideysanaya inaan hambalyo u diro dhammaan shacabka reer Khaatumo meel kasta oo joogaan dal iyo dibad labadaba sidoo kale waxaan halkan munaasabadan aan hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaa walaalaha iyaga reer maakhir ee ku dhaqan daafaha adduunka sidii madaxweynuhu sheegayna waxaan leenahay anaga iyo reer maakhir waan isku darsanaynaa geelis shirka halkan ugu qabtay ee uu qabtay wasiirka Khaatumo Master Maxamed Maxamuud Doolaal Axmed Maxamuud Doolaal aad iyo aad baan u soo dhaweynay si aad iyo aad u soo dhaweynay agahan ka raacsana indhaha ka raacsana socodkan ka raacsana waa taageersanayna dhiig haday nala gasho waa u dilay shirka maakhir iyo ay ku midoobeen Khaatumo waa raacsan aad iyo aad baan u raacsana si xoog iyo talaan u raacsana waana u baahan doonaa Abdiraxmaan Jaamac Shacab Abdiraxmaan Wadani